waxaa jirta inta ceergaabo anigu meel ceergaabo la yiraahdan ka yimi aan cashuur qofku ka bixinayn ilaa iyo markasay caluula ceelbuur ceeldheer ilaa iyo caabud waaq ilaa iyo cidhifyada badda inta aynan cashuur bixinayn oo aynan inagu ciidamadeena iyo shaqaalaheena iyo inteena nugul aynan wax siinayn afaf badan bay nagu kalifaysaa in lagu hadlo marka afafka horta cashuurta inaga damaanad qaadi karta cashuurta la ogaado taa marka halka kaga baxo maalin dhaweyd oo aanu ka fikiraynay sidii dadka wax loo tari lahaa baa wasiir fiqi oo Suudaan ku noolaan jiray wuxuu nooga warramay dadka reer Suudaan zakadooda waxa qaada dawladda zakada oo kaliya waxa ay danyartooda ku taraan qolo badan bay kaga maarmaan dabcan Soomaalidu siyaabo kale oo aan qaramaysnayn oo aan heer bulsho ahayn bay wax isu taraan qof walba oo Soomaali wax barashadiisa iyo ababkiisii hore waxa saameyn ku lahaa mid dadban iyo mid toosaba in adeerkii habar wadaagi in abtigi soo saas ma wadanihin laakiin waxaynu isu geegeynta ka maqan qaybintan ku wacan way adag tahay in la helo dad Soomaaliyeed oo daryeelaya wax qaranka iyo qabiilka u dhaxeeya halka xataa in lagu sii nagaada loo baahan yahay يعني وناك فربنا بيننا لكن قرنمدو iyo dawladnimadu waxayba ku soo ururtaa markii la soo koobay cashuur la qaado xukun sharci ku dhisan oo la fuliyo cashuur lagu qaado dadka loogu adeego kii waxaystana wixiisa loo ilaalinaya kan waxaysana wuxuu ku noolaada la siinay ilaa hadii kale laba nin oo midna waxaysto midna aanu waxaysan wada noolaan maayaan baashan dawladda la yiraahdo markii dib loo raacayba innaka waxaystana wixiisa loo ilaaliyo ka aan qadayna uu qada helo suuqada ku helaya fursad shaqo ku helaya wax soo saar buu ku helaya kambaniya loo aasaasaya waa la isu baahan yahay intaanan saaxiibadeen la hadal dawladnimada Soomaaliyeed tadawurkay soo martay maanta isaga warramay mayno isbedelada ku yimi iyo wax laga filanayo annagoo isla iska farfadhiista oo mala halkeen iska jooga baa waxa noo soo baxday dagaalka aanu qaadnay ee shabaab ku qaadnay 5 milyan oo kale oo in wax la siiyo u baahan baabay keentay 4 to 5 milyan dada ayaa ku dhaqnaa deegaanada iyo degmooyinka ay haysteen khawaarijtu nimankaas xoog iyo caburin iyo cudud bay dadka ku haysteen gaajo iyo macluul waa ku dilayeen حتى معامد القرآن كيفرواي ده نمكي عين كها مركي نككعنه وإنه نمكي كدونا النصامة أذيك بلا نجس سجية وحبرش بلا نجس سجية عافمات بلا نجس سجية حد أبي عالم ترسي دافت مركا وحي اللي نجربي يدرال كي دولد وإن لبتشبارو والسببتي إن بدن كبار الدجنو وأنت يريد الدبد اللي جه للشري سير الله استعمال الدونا توشكا أوفق الشاقي أيانو مدودني توشكي ماشي دحا ماشي دحانو ربنا مركينا ندقنو أو إسكما تغانا يدهارنو وابل ترشبه يا بانو ملينا يا الشيكة داي حالة صوماليا وزيردنا ويكرد واقعين وح بدن باك السعودة هرت الدب حرين باك السعودة oo 400 kilometer 500 kilometer dhulkun kilometer gaaraya oo ay dawladda gacan ku hayn jirin baa dhiigii naf loo huray oo maanta ugu yaraan 50 meelood bay isku hor fadhiyaan cadawga Soomaali ku habsaday iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed herarkiisa kala duwan ilaa ay Janay Cabdalla ilaa ay meesha la yiraahdo budbud hadiyad meel inagu siiyay dhulka naf iyo lacag iyo maal baa galay taas waa xoreyntii waxa barbar socota xasilintii adeegyadii waxa barbar socota diin cafintii waxa barbar socota gurmadkii loo fidinayay kuwa abaaraha ku barakacay iyo colaada iyo kuwa Suudaan iyo meelaha 1200 qof ayaa la soo celinaya maalin dhaweed baan soo dejinaynayo qofku
isagoo dalkiisii ka qaxay markuu haddana meel kale ka soo qaxo soo noqdo iyo culayska saaran markaad aragto waad yaabaysaa waxa dalkan ka socota sidii cimilada wax looga qaban lahaa isbeddelka ee saamaynta ay ku leedahay mantaqa isbeddelka cimilada iyo biyadu waxa socda dadaalo fara badan oo waxbarasho 3,000 oo macallin barnaamijka baxnaano caafimaadka beeraha wax fara badan oo tiifiyada aydan ka arago wanaagsan baa socda laakiin wali inaguma filna qaybta dhimani waa qaybtii inaga inagu maqnayd adduun weynihii Suudaan oo aad ogeydeen raggiina halkan fadhiya badi inaad wax ku soo barateen iyo in kalood garanaysaan baa maanta loo gurmanaya adduunku Soomaaliya 30 sano waa ilmo intuu dhashay ilaa 30 sano intii uu jiray lagu hayo meesha incubatorka adduunku meel inoo fadhiyo maayo oran maayo ma kan uu fadhid buu noqday kan ka tagayno maanta oo dhan dul fadhiyayna adduunkii baa meel badan ka holcaya waxa la inaga rabaa inaynu dadka culayska ka qaadno culaysna cashuur baa qaatay horta cashuurta hal la ogaado wax soo saarka hal la ogaado isku xidhka dawladnimada hal la ogaado inagu intaas un baynu isfaraynaa balan saaxiibadeena la hadlo